7 sababood oo Man United ka hortaagan saxiixa Paul Pogba. 100 milyan waxa ay Man United u goysaa xiddiga badan oo siin kara inta ay ka heli karaan Paul Pogba. Pogba waa xiddig awood u leh inuu sameeyo waxyaabo aad loola yaabo, waxa uuna samayn karaa fursado badan, balse su'aashu waxa ay tahay ma yahay mid 100 milyan u qalma. Qoraacana ayaa yidhi 100 milyan ee lagu doonayo Pogba waa mid waali ah. Inkastoo Pogba yahay ciyaaryahan wanaagsan, Ronaldo iyo Messi waa mid ku qarasha waqti xaadirkan hadda la joogo. La wada ogsoon yahay qiimaha ciyaartoyda ayaa ahaa mid cirka iska galay sanadihii dambe, iyadoo qarashka iyo ciyaartoyda ay ahaayeen kuwo kala duwan. Marka aad eegtid, ciyaartoy uu ka mid ahaa Raheem Sterling oo lagu iibiyay 50 milyan lacag dhan ilaa 49 milyan gaaraysa oo euro, balse Pogba ma aha mid ku heer ah xiddigaha kale ah Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi. Iska baddaa Luis Suarez, Neymar iyo Gareth Bale. Marka ay imaato awoodda in lagu guuleysto kulamada qaarkood ama koobab shakhsi loogu guuleysto oo ay ku guuleysteen xiddigahaas, Pogba halkee ayuu u qalmaa marka loo fasaxo inuu aado dhanka weerarka isagoo ka duulaya booska ama nambarka 10aad? Paul Pogba waxa uu runtii yahay mid aad u cajiib badan, kaasoo ah kubad sameeye cajiib badan marka loo sheego inuu gadaal u dego oo uu difaaca ama ahaan mid si aad ah khatar. Marka Pogba loo sheego inuu gadaal u dego oo uu ciyaaro khadka difaaca, ma ahan mid si aad ah khatar ugu ah inuu ciyaaro gadaal ama dib u degto. Kulankii finalka Euro 2016, Pogba waxa uu ekaa mid ka fog, aanan marnaba u muuqan mid ah xiddiga ugu qiimaha badan nambarka 6. Pogba ma uusan ahayn mid ka muuqday kulamadii Euro-ga ee uu ciyaaray xulkiisa waddanka France, balse marka aad eegto kulankii Jarmalka waxa uu baasay kubad isagoona madaxa u saaray kubad Antoine Griezmann, kaasoo ahaa goolkii labaad oo ay Faransiisku ka dhaliyeen dalka Jarmalka. Kastoo kulankii labaad ee finalka ahaa Pogba uu dheelayay nambarka 8aad, kaasoo ku kalifay inuu gadaal nambarka 6 kubadda ka soo qaado, isagoona u muuqday mid aan wax isbeddel ka sameynin ciyaarta, aanan ahayn xiddig ah meeshii lagu taameeyay ama inuu la mid yahay xiddigaha dunida ugu waaweyn, isagoona ciyaarta dhammaystay isagoo aan wax isbeddel garoonka ka sameynin. Laga yaabo inuusan ahayn weeraryahan afka hore ka ciyaara, ma ahan number 9, laakiin ani ahaan weligiis ima noqonayo nambarka 6. Ciyaaryahan meel u jirta 50 mitir goolka ku sugan isagoo kaga jeeda Wayne Rooney, ayuu yiri Mourinho oo ka hadlaya Rooney. Aniga wuxuu ii yahay nambarka 9aad iyo kan 10aad, laakiin weligiis ima ciyaarayo 6 ama xitaa 8, ayuu hadalkiisii kusoo gabagabeeyay. Taas ayaana laga fahmay in Mourinho uu doonayo in booska 8aad uu dheelsiiyo Pogba, kaasoo uusan ahayn boos uu khatar ku yahay, maadaama Pogba aan wada ogsoonahay in booskiisa dabiiciga ah uu yahay nambarka 10aad.